guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo kaashanaya guddiga la socodka dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ayaa bilaabay la tashiyada wejiga labaad ee dib u eegista wax ka beddelka cutubyada 5 ilaa 9 ee dastuurka kadib markii ay soo gabagabeeyeen la tashiyadii wejigii koowaad ee lagu kala qabtay magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka dawlad goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo maamulka kumeel gaarka ah ee SSC Qaatumo guddiga ayaa kulan la yeeshay dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo ururada kala duwan ee u dooda oo ay qayb ka tahay hay'adda naafada qaranka qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba oo ra'yigooda ka dhiibtay cutubyada 5 ilaa 9 ee dastuurka ayaa ammaanay dadaalada guddiga marka laga hadlayo dastuur in dadka loo soo bandhigo ay ka doodaan waa xuquuq dastuuri ah waay qof kasta oo Soomaali ah ama naafahaada ama naafayuusan ahaanine xuquuqda uu leeyahay inuu tala ku yeesho oo uu soo jeediyo ra'yigiisa cutubyada 5 ilaa 9 ayaa udub dhaxaad u ah dastuurka kuwaas oo loo asteeyay 3 laamood ee dawladda ee kala ah laanta xeerdejinta laanta fulinta golaha wasiirada iyo laanta saddexaad ee garsoorka hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ayaa la tashi kala sameeyay hay'adaha garsoorka cutubka 9 ee garsoorka oo ka kooban 4 madax oo kala ah madaxa koowaad oo ka hadlaya qodobo guud madaxa labaad oo looga hadlayo maxkamadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxa saddexaad oo ah xeer ilaalinta guud iyo madaxa afaraad oo ah maamulka garsoorka shirkan oo ka soo qaybgalayaasha loo qeybiyay 4 kooxood si koox waliba uga soo baaraan degaan kuwaasoo soo bandhigay ra'yigooda ku aadan cutubka 9 ee garsoorka sidoo kale intii lagu guda jiray la tashiyada wejiga labaad cutubyada 5 ilaa 9 ee dib u eegista wax ka beddelka dastuurka hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ayaa la kulmay haweenka dhalinyarada bulshada rayidka iyo aqoon-yahanada oo dhammaantood loo soo bandhigay natiijooyinkii ka soo baxay la tashiyada ee dib u eegista wax ka beddelka cutubyada 5 ilaa 9 ee dastuurka guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ayaa cutubka 5 ee dastuurka oo tilmaamaya baahsanaanta awoodaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa hordhigay wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kale ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo qayb ka ahaa kulanka ayaa lagu soo bandhigay awoodaha u gaarka ah dawladda federaalka Soomaaliya awoodaha u gaarka ah dawlad goboleedyada awoodaha u gaarka ah dawladaha hoose awoodaha ay wadaagaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada awoodaha ay wadaagaan dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo awoodaha haraaga ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa ka hadlay ahmiyadda cutubyada lagu wada dib u eegista ay leeyihiin marka inaanu goliga wasiirada caawa habeen aanay ahayn inaynu shirno inaan shir u qabanno oo aan guddiga fursad siino horta taas waxa ka mid tahay ahmiyadda aynu siinayno dastuurka hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka ayaa kulanka hay'adaha dawladda ku soo bandhigay dhammaan natiijooyinkii ka soo baxay la tashiyada wejiga koowaad iyo labaad ee dib u eegista wax ka beddelka cutubyada 5 ilaa 9 ee dastuurka la tashiyada wejiga labaad ee dastuurka ayay hay'adaha u xilsaaran dib u eegis ku sameeyeen habka danabaysan online sidoo kale waxay kulamo la soo qaateen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalalka Kenya iyo UK kuwaasoo aragtidooda ka dhiibtay cutubyada 5 ilaa 9 ugu dambeyn guddiga madaxa bannaan oo kaashanaya howlwadeennadii waxay qoraal faahfaahsan ka diyaariyeen dhammaan la tashiyadii wejiga koowaad iyo labaad ee dib u eegista wax ka beddelka dastuurka oo laga heli karo mareegta guddiga uu ku leeyahay internetka www.icric.gov.so